السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيق وعلي حسن أحمد وحنا هاي مدح كلية ICT. هدي أن وحير كي لهذا مادة اللي لهذا ICT أما Information Communication Technology ومادة كصابسن حرير كعالمي يو سكارسينتا loogu talagalay oo hogaaminayaan aaladaha casriga ah ee application programmingska ee loogu talagalay computerada iyo internetka si loo kaydiyo ama loo maamulo xog waxa adduunka ugu muhiimsan ee la ilaalin karaan ee loogu talagalayna waa in la ilaaliyo xog weeyaan organization xog u leeyahay personal ama qof uu xog u leeyahay ama waxa la yiraahdo sir qofku sidoo uu ilaalin karo waxyaabaha adduunka maanta kor u kacay ee kor adduunka ugu qaadayna waxa weeyaan ilaalinta macluumaadka iyo documentiga iyo xogta uu organization ama qof leeyahay marka basically intaas ay horta ku saabsan tahay baahida loo qabo kuliyadan ICT-gu waa dadku waxyaabo ay aad u rajeeyaan aadna u doonayaan inay bartaan 100% dalkeena Somaliland ama dalka Soomaaliya oo dhan wuxuu u baahan yahay waa kuliyadan inay dadku xirfadooda kor u qaadaan ilaalin karayaan applicationada iyo modernka iyo adduunyadan casriga ah ay la jaan qaadi karayaan ardayda dhigan karta ama qofka dhigan karaya waxaan loo yaqaano ICT-gu waa in xirfadda computerka yaqaano waa in uu smart yahay oo wax si degdeg ah u fahmi karo waa inay maskaxdiisu furan tahay waa inuu ujeedo leeyahay waa inuu hadaf leeyahay waa inuu doonayo inuu adduunkan la tallaabsado waxyaabaha ku soo biiraya waayo adduunku imika digital world buu noqday maalinta ka dambaysa adduunku isbedelaya qofkuna waa inuu rajo ka leeyahay inuu adduunka isbedelkiisa kor u qaado isagoo ku shaqeynaya technology-da ujeedooyinka kuliyada iyo waxyaabaha ardayga laga dhisi doono waxa had iyo jeer kamida inuu ardaygu yeesho xirfad uu ku shaqeyn karayo oo computerka iyo applicationskeeda ku shaqeeyaan iyo sida xog loo ilaaliyo iyo sir loo ilaaliyo oo organization leeyahay ama uu qof leeyahay oo qofku baran karayo qofku waa inuu kala yeesho wax la yiraahdo academic preferences ama waxa uu qofku yeelan karayo academic profile qofku waa in uu yaqaano waxyaabaha kala duwan ama communicationska kala duwan ee uu ku shaqeyn karayo adduunka waa in uu garan karayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu organizationku ka shaqeynayo ama dawladdu u shaqeynayo ama qof shakhsiyan hadduu isagu u shaqeysanayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee la ilaalin karayo lana gudbin karayo ay tahay xogta fursadaha shaqo ee u banaan qofka barta iyo meelaha uu ka shaqeyn karo waxa weeyaan adduunka organization kasta ama government ha noqdo ama non government ha noqdo ama jaamacad ha noqdo ama xafiis ha noqdo ama wax kastaba ha noqdaan hadii ay shaqo noqoto IT-gu waa laga maarmaan meel kasta xafiis adduunka kuma yaala aan laga rabin IT ama qofka la weydiin karayo xirfad computerized system ah oo ku shaqeyn karayo iyo applicationkiisa marka waa laga maarmaan hadii kuliyadaha kale ee ka jira jaamacaduhu qof kasta waxa khasab ku ah in uu barto computer application waana muhiim waxa loo yaqaan isgaarsiinta technology-da IT-gu in ay ka qayb qaadan doonto horumarka adduunka ee maanta ku soo kordhaya ee kor u kacaya waxaana uu tusaale fudud kugu filan maalin kasta intaas oo bilyan oo qof baa social media iyo telefooniska iyo communication computerized systemka waxaasoo dhanba isticmaala qofkuna wuxuu u baahan yahay inuu ka qayb qaato oo uu la tallaabsado modernkan digital world-ka ah ee uu doonayo in uu wax ka soo gaarsiin karayo marka waxaan qofka ka dhisnaa waa xirfadda fahanka inuu wax abuuri karo waxna sameyn karo taasana runtii aad uga dhisnaa takhasusaadka uu yeelan karayo qofku waxa weeyaan in uu noqdo programmer in uu noqdo database admin in uu noqdo network analyst in uu noqdo system analyst in uu waxyaabahaas oo dhan wax ku takhasuso sidoo adduunka u maamulo una ilaaliyo shirkad aayaheeda iyo documentationkeeda iyo qof preferenceskiisa uu ilaalin karayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee mucjisaadka kamida IT-ga waxa ugu muhiimsan ah in uu qofku adduunka oo dhan maamuli karayo one time kaliya ama one second kaliya waxyaabaha ka dhici karana waxa kamida in uu qof kaliya adduunka xafidi karayo in one second kaliya marka waxa taas loo yaqaan mucjisaadka ICT-ga waa kuliyad ballaaran waa kuliyad cajiib ah waa kuliyad runtii dadka oo dhan xiiso gelisa waa kuliyad ardayda dhiganaya ay aad u xiiseeyaan runtii ardayna ma wadi karo aan eligible ku ahayn IT-ga ama aan awoodeedii lahayn waa kuliyad awood u baahan waa kuliyad xirfad u baahan waa kuliyad aqoon u baahan waa kuliyad xirfad u baahan waa kuliyad u baahan in uu qofku u samro outcome-keeda iyo waxa uu rajaynaya ee uu ka heli karaana
ay wax unexpected ah oo aanu rajayn karin ay noqon karto marka ICT waa maadada dalka looga baahan yahay waa maadada dunida looga baahan yahay waa maadada dunida horumarisay haday noqoto schoolska haday noqoto educationka dhamaanteed haday noqoto caafimaadka haday noqoto organizationada governmentka iyo non governmentka ah haday noqoto business sectorska waxa soo dhanba waxa kor u qaaday waxa weeyaan waa technology hadii aanay jirin ama business ama government ama jaamacad waxna hore uma dhaqaaqin marka waxaan talada ku siin lahaa qof kasta oo xiiseynaya inuu niyad u yeesho u samro ka qayb qaato adduunka inuu kor u qaado oo uu la talaabsado adduunkan cusub iyo waxaan uu ka rabo inuu adduunka ku soo biiriyo dhalinyar yar iyo dad badan oo aad wada garanaysaan ba adduunka intaas oo application oo successful ku soo biiriyay sidee baynaan inagu Soomaaliya ugu soo biirin karin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.